shirka wadatashiga wasaaradaha warfaafinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa maalintii labaad ka socda magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho waxaana maanta laga dooday dhowr qodob oo ay ka mid yihiin xeerka saxaafadda qaranka oo horyaala baarlamaanka, istiraatiijiyadda wacyigelinta bulshada ee warbaahinta qaranka iyo sidii ay warbaahinta dawliga ahi u yeelan lahaayeen iskaashi iyo wada shaqayn dhow. guddoonka guddiga warfaafinta u qaabilsan golaha shacbiga Soomaaliyeed ayaa sharaxay halka ay marayso hawsha dib u eegista xeerka. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay shirka ayaana su'aalo ka weydiiyay. waxaa jiray qodob ka mid ah qodobada aadka walaaca looga qabay oo ka mid ah in wariyaha uu sheegi karo isha uu warka ka helay oo lagu qasbi karo. taas qodobada aad xaliseen ku jirtaa mise waa qodobada dhiman markii aad la kulmeyseen warbaahinta ama qaybaha kale ee saxaafaddana ma kulan iska furan u ahaa oo maaragtay qof walba ra'yigiisa uu ku darsanayay mise guddi gaar oo saxaafadda ay soo xushay oo walaacan ay ka qabaan ay soo bandhigay ayaa jira. labadaas su'aaloodan qabaa mahadsan. xeerka waxaan jecelnahay in lagu soo daro in la sameeyo waxa weeye xarunta Soomaaliyeed ee warbaahinta, xaruntaas oo siinaysa aqoonsi qofka saxafiga. aqoonsi baa la siinayaa. aqoonsiga markii la siiyo macnaheedu waxa weeye saxafi ayuu yahay. aqoonsiga markii la siiyo 3 bilood kadib baa qofka la imtixaanaya markuu isqoro xarunta xilliga 3 bilood kadib waxa la siinayaa buuggaas oo ah xeerka aan dejin doono. xeerkaas la siinaa soo akhri. xeerka markuu soo akhriyo waa lagu imtixaani doonaa xeerkaas. waa ku qasbanahay inaan la wada shaqeeyo hal dhinac looga wada jeesto wixii xun dadkana laga wacyigeliyo lana wacyigeliyo dadka waxa wanaagsan loo wacyigeliyo aad iyo aad ay wanaagsanta. laakiin waxaa ka horeeya marka hore inaan is aamino oo aan wada shaqeyno waxna qaybsano oo isku xilli uu ka soo galo Puntland TV, Jubaland TV, SNTV, Koonfur Galbeed TV iyo dhammaan raadiyaasha dowlad goboleedyada uu ka soo galo iyo telefishinada kale ee haddii alla idmo dowlad goboleedyadu ay samaysan doonaan kale in hal mar uu ka soo galo oo markaas si guud loo wada daawado. iyadana waxaan is leeyahay waa muhiim haddii alla idmo in la mideeyo waa wax loo baahan yahay. waddankan haddii qoloba meesha ay joogto waxay doonto iska sheegto jiritaanka iyo dawladnimada qaranka Soomaaliyeed gacan ka baxayso. waa wax muhiim ah in warbaahintaas la mideeyo. laakiin in la mideeyo waxa ka horeysa horta la isfahmo marka ugu horeyso. wax kasta oo la daa'imo barashay leeyihiin. haddii aan isu badnaano oo isu dhadhawaano hal qof aan noqonaynaa. laakiin sida walaalkay agaasimaha TV-ga Puntland hadda uu ka shanqaliyay once for a time haddii shir la isugu yimaado waa meeshaydii kasoo bilow haddana shalay maxaan isniri wallahi mugdiyaa gala balaan hadda boor ka jafno. marka intaas in qaabkaas aan u wajahno aan ku midayno waa qabaa. sheegidda aan sheegaynana terminolojiyadaasi haddii nacfi leedahay inaan heer dalka aan ka dhigno. qodobo ha ahaadaan 10 qodob ha ahaadaan 15 qodob inta meesha lagaga heshiiyo qodobadaas warbaahinta heer dowladda dhexe, heer maamul goboleed iyo heer macnaha warbaahinta gaarka loo leeyahayba qodobadan waa lama taabtaan, waa red line in la dhaho meeshaan lagaga heshiiyo ayaa aniga muhiim ila ah. gudoomiyaha guddiga warfaafinta dhaqanka iyo isgaarsiinta golaha shacabka Soomaaliyeed Khalid Macow ayaa isagoo ka jawaabaya su'aalaha waxa uu yiri mowduuc hadda aan rabno inaan ka hadalno waxa anaga xeerka saxaafadda waaye. xeerka saxaafadda waa ogsoontiin waxaa lagu ansixiyay golaha wasiirada soo ansixiyay wasaaradda geysay annaga baarlamaanka uu horyaala. baarlamaankana waxa waaye runtii waxa uu masala shacabku masala xeerku waxa waaye meelo badan iyo ka fiirnaa marka la soo gudbiyo dhinaca sharciga uu ka fiirnaa laana haddaad fiirisan waxyaabaha qaarkiisa waxaa laga ilaalinaa dastuurka inuusan ka hor imaanin. dastuurka markii aan ka hadlayno wax walba waa ku qeexan inkastoo ku meel gaar yahay haddana ummad waxaa lagu dhaqaa dastuura lagu dhaqaa. dastuurkaas waa sheegaa maartay waxyaabaha aad shalay ka hadlayseen anshaxa waa sheegaa diintu ka hadlaa waa sheegaa xorriyadu ka hadlaa shay waa ku qoran yahay. horta waa laga marmaan macnaa qof kastoo muwaadina inuu maartay dastuurkaas inuu maartay indhaha mari uu arko uu barto laana waxa wixii asiga lagu dhaqaayo waa inuu barto. saxafiyiinta gaar ahaan maartay waa laga marmaan inay fiiriyaan oo indhaha mariyaan maartay. Axmed Cali Kaahiye warbaahinta qaranka Muqdisho.